Assalaamu calaykum daawadayaal waa Boolimoog channel oo daga barateen aad buu idin soo gudbiyo dhacdooyinka dunida waxaanu idin haynaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay xaalka uu maraya coronavirus dowladda dalka Mareykanka ayaa waxa ay hor istaagtay amaba ay xanibaad ku soo rogtay in ka badan 300 oo kun oo tan oo ah maaskarada lagu xirto wajiga iyo gacmaha la gashado kuwaasoo ku socda dalka Canada oo laga qaadi lahaa gudaha dalka Mareykanka oo taas uga dhigay in uu isaguba aanu haysan agab ku filan marka la eego dhinaca maaskarada iyo gloveska oo dunida gabaabsi ku sii noqonaya tagsiilayaasha dalka Mareykanka mid ka mid ah oo ka dhaga adeegay inuu raaco awaamirtii ahaa in isgo'doomin qof walba gurigiisa ku sameeya si uu u soo saaro biilka qoyskiisa waxa uu ka shaqeynayay shaqadiisa caadiga ah dibna waxaa haleelay cudurka isaga iyo faamilkiisaba waxaana lagu soo warramayaa inay u geeriyoodeen dalka Bangladesh jameecada tabliiqa oo ah xilligan oo kale kulan weyn ay isugu iman jireen oo ka dhici jiray mujmaca ugu weyn tabliiqa ay ku leeyihiin dunida oo ku yaala dalka Bangladesh ayaa waxaa laga helay dadka halkaa isugu yimid 28 qof oo ka mid ah dabadeedna waxaa la joojiyay isu imaatankii kulankaasi oo dhici jiray bil walba oo Shabcaan ah xilligan oo kale taasoo loo aaneynayay dhammaanba dunida xanuunkan saameeyay oo laga mamnuucay inay dadku isugu yimaadaan goobaha waaweyn waxaa kaloo la sheegayaa ciyaarihii Premier League ee dalka Britain inuu saameyn weyn u geysto dhinaca dhaqaalaha cudurkani oo tan iyo markii uu dunida ku soo kordhay dhibaatooyin iyo saameyn fara badan u geystay caalamka oo dhan waxaana uu aad ula sii degay dhaqaalaha dalalka waxaana la sheegayaa Premier League inuu hoos u dhac weyn ku yimid dhinaca dhaqaalaha seasonkan oo ahaa mid aad dadku xiiseynayeen ayaa gabi ahaanba baaqday xanuunkan coronavirus ayaa waxa uu noqday mid dunida ay u xalweysay isagoo maalinba maalinta ka dambeeya ku sii fidaya dalka Uganda ayaa waxa isagana uu ku jiraa bandow asbuucii saddexaad taasoo dadka meheradaha leh amaba ganacsatada yaryar uu qof walba meeshii meherada u ahayd uu seexdaa maadaama uuna helaynin gaadiid ama wax u raaco xaafadiisii iyagoo qof waliba uu hooy ka dhigta amaba uu seexdo halkii uu ku ganacsanayay oo uu ku gadanayay shaqada maalinlaha ahayd taasoo qofka aanu awoodin inuu luku aado ama masaafo dheer ay ku tahay halkii uu ka yimi iyadoo uu ka doorbiday inuu seexdo halkii uu ku ganacsanayay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa waxa uu sheegay inuu iskaashi la sameyn doono dalkiisa wadanka Spain labada ra'iisul wasaare oo ku wada hadla khadka taleefanka ayaa waxa ay isla meel dhigeen inay ka wada shaqeyn doonaan la dagaalanka coronavirus iyaga oo yiri si wada jir ah inaan uga hortagnaa waxaa kaloo booliiska dalka Hindiya ay gacanta ku soo dhigeen 3 nin oo u dhashay wadanka Nigeria oo ku noolaa dalka Hindiya kuwaasoo ka ganacsanaya daroogada iyagoo lagu qabtay 2 kiilo iyo bar in ka badan oo darooga ah kuwaasoo hadda booliiska dalka Hindiya magaalada Bombay gaar ahaan ay ku hayaan xabsi ku yaala gudaha Delhi ama magaalada Bombay waxaa kale oo maasgaradii wajiga lagu xiranayay gloveska gabaabsi uu ku sii noqonaya dalka Talyaaniga oo uu noqday dalka ugu horeeya ee uu aafeeyay masiibadan oo dhimashadiisa ay ku dhowdaa 16,000 iyada oo ku dhacay in ka badan 300 oo kun oo qof ayaa dowladda Talyaaniga oo dagaal adag kula jirta waxa ay sheegtay inay u baahan tahay gloveska iyo maaskarada wajiga oo dheeraad oo lala soo gaaro iyadoo aad muddo dalka Talyaaniga inuu Yurub intiisa kale ay ka gaabiyeen waxqabadkay u muujin lahayn walow uu dal walba la yaaban yahay amaba uu la daalaa dhacayo sidii uu isagtiisa ka yeeli lahaa hase ahaatee Talyaaniga ayaa waxaa la oran karaa waa uu soo ritay cudurkani waxa uu u galay xad aan la filayn amaba waxa uu gaaray heerka ugu sarreeya ee uu ku fido dal tan iyo markii la soo sheegay amaba dunida ay ku dhawaaqday cudurkan ayaa Talyaanigu maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhisay dhimashadiisa wadanka Mareykankana waxaa la sheegay gaar ahaan gobolka New York in la gaarsiiyay shixnad ka kooban 1,000 ventilator taasoo ugu deeqay dalka China maayarka magaalada New York ayaa arrintaas sheegay waana uu uga mahad celiyay dowladda China sida ay ula soo gaartay 1,000 ventilator ama shixnadan oo ay aad ugu baahnaayeen guud ahaan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York oo ah meesha ugu ballaaran ee cudurkan uu ku habsaday